euro USD saa ujeedaan iyadana waa same scenario weye waa isku mid un GBP USD waa isku qiso okay labaduba waa uptrend liquidity laynoo sameeyey waa ujeedaan euro USD complex pullback dheer ayay qaadatay maalmahan oo dhan inay samayso ugu dambeyn lacagtan waxay joogtaa zone muhiim ah oo ay hadda reaction ka ujeedaan ka soo samaysay waxaan ka doonaynaa oo kaliya liquidity waa ujeedaan mitigation move dhaqaaq awood badan ayaa lagu jabiyey hadda 15 minute u degtaan waa arkaysaan liquidity su clear u yahay mitigation move-ka iyo sidoo kale waxaa mid u tirsan kartaan dhaqaaqyadan counter trend-ka oo 15 minute time frame ku eeganaysid waxaan ka sugaynaa sida GBP USD iyadana in counter trend break-ga in candles boligooda uu ka kormaro ayaan sugaynaa ilaa berri trade-ka iyadana waa qaadan doonaa waxaan idinla soo wadaagayaa maxsuulkooda labada trade GBP USD USD iyo meesha ay ku dambeeyaan berrito wixii ka dambeeya weli waxaan fili doonaa lacagtan inta muddada inta la eg ay ku soo socotay bay waa ujeedaan soo ilaa goorma ayaan uptrend euro USD ka qaadanayn ilaa halkan waa 1 April ya waa 4 5 6 iyo 7 oo hadda kala bara 3 bilood iyo bar ayay euro USD iyo GBP USD ba waxaan ka qaadanaynay fursado bay ayaan ka qaadanaynay waxaan fursado ujeedaan waxaan ka qaadanay euro USD okay one of the day lacagahan way soo kala wareegi doonaan ya oo marka laynoo jabiyo higher lowgeena ka muuqda GBP USD lacagtaani waxay sell ayay labada lacagood isu bedelayaan oo down trend ayay isu bedelayaan way waxaan rajaynayaa pullback-tan hadda inagu dheeraatay marka xoogaa la soo yara astro ilaa meelahan fursadda bayda aan ka qaadano oo lacagtan hadda down trend-ka ku socota aan weliba la haysan bias-keena guud ee jihada suuqa xoogaa waxaan isleeyahay waxay u yara baahan tahay in one more up ay bullish gareeyaan buyersku kadib lacagtan pullback yar ku filan maadaama lacagta dollarku ay xoog badan tahay ay discount ku jirto ama ay hoos u jeedo waxay u yara baahan tahay lacagtan iyadana in la soo yara discount gareeyo USD iyo GBP USD labadaba in pullback ku filan ama NF correction ku filan in la keeno ilaa meelahan oo dhaqaaqana u jeedaan la soo yara astro oo aan caafimaad ka qabin dhaqaaq walbo aan ku socon price action-kiisu aanu qurux badnayn oo aan higher low samaynayn oo buyers awood badan ee xeelad noocaas ah in la soo yara qaboojiyo lacagtan u baahan tahay ilaa meelahan in la keeno kadib inay cirka isu sii shareerto ilaa ay higher jabiso waa u joogi doonaa mustaqbalka iyo lacagtan waxay samayso laakiin hadda price action-ku waxa uu ina faraya ayaa muhiim ah hadda price action-ku wuxuu ina farayaa lacagtan inay weli inoo tahay uptrend in la joogo zone muhiim ah in la samaysto liquidity in counter trend break aan ka sugayno week baa jabsaday laakiin body inuu jabsado ayaan ka sugaynaa meelkaan halkeedii saaray bodygu marka uu jabsado interigana marka lagu soo laabto fursado bay ayaan ka qaadan doonaa berri insha Allah taala wixii ka dambeeyana waa u joogi doonaa lacaguhu iyo say isu bedbedeli doonaan insha Allah usbuucan iyo usbuucyadii ka horreeyay iyo usbuucyadii ka soo horreeyayba trade ayaa soo public gareynayay hal trade oo kamid ah kuma inaa khasaarin interiyadaan idin soo diray waxna waa trade areas iyo bias waxna waa interiyadii aan idin soo diray hal interi kuma aynaan khasaarin sidoo kale interiya ka badan oo aan xitaa live ku wada qaadano ardaydan mentorship-ka aan siiyo ayaa jira kuwaasna hal trade oo kamid ah kuma aanaan khasaarin alxamdulillahi rabbil caalamiin istiraatiijiyadan way fadhidaa saaxiibayaal waa istiraatiijiyad la isku halayn karo 100% dhalinyarada suuqa ka caajistay sanadaha faraha badan ku jirtay kulli intii la soo xiriirtay waqti yar gudihiis waxay gaareen maxsuul ay ku farxeen runtii iyo natiijo qurux badan istiraatiijiyadan isticmaalana waa market makers istiraatiijiyada isticmaalaan
waa institutional trading qaabka ay dadka suuqan rangareeya oo marketkana u jeedid jiheeya stop loss-ka arkaysaan in kaga dhuftaa trade-yada qaadano qaabka iyagu fikiraya anagu fikirnaa istaraatiijiyada isticmaalaan isticmaalaa waa istaraatiijiyad powerful boqolkiiba boqol trade-yadani waxay ku dambeeyaana waa isla arki doonaa waa mahadsantihiin